gabadhii dadkii u qaban waayay xasir amnigeeda ma sugi karaane gabadha u tag bal oo amnigeeda iyo hawsheeda wax ka gal haye alxamdulilah waa nabad qabtaa amnigeedu waa sugan yahay haye haddana dadkii awal gacanta ku hayaa kaaya haddana haddaad amnigeeda gabadhaas aadna sugi karin maba sugi kartiina ilmada badan iska tareex ilaa dadka ilaa intaas aan ku sugaa waa fadhiya aniga ma seexanahay waa soo jeedaa iigu keena showgu waa baaqday showgu waa baaqday inuu showgaas baaqday yaa mas-uulka showgaas inuu baaqda waxaa mas-uulka dadkii maalintii kuwaad gabadhaas baxarka iyo buuqa ku furay geliyey yaa ahayn dadkaas wallahi ayaga waa la yaqaanaa dadkii yihiin hebel hebel qof ataagi maayo qof bini aadan ataagi maayo laakiin waa la ogyahay wax walba social media waxa dhex yaala waayo aada weyn ya aada weyn wax walba la arkay dadkii dhahay dhabarkeena ku jirtaa aawo dhabarkii ya haye dhabar ma jiro dhabarna ma qari garee meeshaan awood iyo dadnima rabtaay gabadhaas hadaad ammaankii sukirin alla ii keenaniyo adaa sugay haddana koraan ka ilaalinaa inna lillahi haddana intii meesheedu ku laabanayso koraan ka ilaalina waajiba ay saaran waajib somalilandnima ay saaran amnigooda kuma hadlay kartid gabadha amnigeeda kuma hadlay kartid dadkaas ay la joogto saxamaay gabadhaas oo gurigeedu koraan ka ilaalinaysaa koraan ka ilaalinaa adiga laakiin maala umalay mase isbuuc ka hor hargeysa lagu xiray ya kii hargeysa lagu xiray ani lama xirin gurigeegan joogo de caadi wax yaroo qof wado maraa isqabana dee baalkii la dowladuna qof la dagaal waa la xiraa nina isdagaalay qolaa isdagaalay saldhigaa nala geeyey waa laiga soo celiyey abti ugu dambeyn adiga hadda maxaa ku qorshaysan aniga hadda waxa ii qorshaysaniyo hawl gabadhaas inaan amnigeeda iyo say nabad gurigeeda uga laabanee ka shaqeeyo waa mahadsantahay waa ku salaama guuleyso anigu ciyaar xamar horta dagaalka kulama jirinba laakiin waxaa ka mid ahayd dhallinyaradii showga qabanqaabinayay gabadha u tagay calankii somalilandna dusha ka saaray abti waxaan jeclaan lahay horta marka ugu horreysa inaad hadalkii hore iyo waxyaalihii aan ka hadla aad soo dhegaysato aniga qorshayga wuxuu ahay habboon sidii hargeysa igu soo dhaweysay inaan muqdisho ugu soo dhaweeyo waana sameeyey showga kuu soo haray showga dadkii qabanqaabinayay wada horta anugu kuma jirina dadaa waday aada weyn dadaa gabadhan garoonkii ka doonay aada weyn keenay aada weyn gurigeeyey aada weyn yiri dhabarkeennay ku jirtaa aada weyn gabadhi horta dhabarkooda dadkii waa lagala baxay war cusub haye waa lagala baxayo showgii way qaban waayeen haye mar haddii showgii dadkii qaban waayeen waxaa muuqatay in dhabarkooda lagala baxay ma noo sheegi kartaa dadkaas yiri dhabarkeena ku jirtaa waa laba qof yeyi labadaas qof waa jawaahir baarqab iyo bilaal bulshaawi showgii dhan bacaa labadooda dartooda u baa iyagoo eersaday hadday dad islaam dad kale ama qabaa'ilaad kale aysan ku dhaga hadli lahayn aada weyn oo aysan dhihi lahayn baalkale duud ragaaday ku dangiigtaa aada weyn oo aysan dhihi lahayn dhabarkeennay ku jirtaa aada weyn cid arki laheed iyo cid fiiri laheed walaasheen horta ma jirto yaa waa qabiiladii ku dhagaalayaan anigu qabiil ma sheegay hebel iyo hebel midna ma dhahayo wixii meeshan ka socday iyo wixii baraha bulshada ka socday waa la socotaa aniga gabadhaas walaashay waa u dadaalay inay showga qabsato waa ula dadaalay waa ka daba wareegay haddana waxaan arkayaa in gabadhii toos lagu daaray oo laba qof ku daartay dhehe yaa taaba karo yaa yeeli karo marka labadii qof hal midaan hawada u maraa waxaan leeyahay garabkiina inta isku qabataan garbiina inta isku qabataan showgii gabadhi waa taas u dhiga caawa hayadii amniga waa hadleen kadib markay u adkaysa waayeen buuqa magaalada ka taagan showgiina waa la kansalay marka cidda dambe oo labadaas qof isku aaminay anigu ma aqaano ugu dambayn adiga showgaas ma inuu dhacan ku faraxsaneed mase inuu baaqdo aniga inuu dhacan ku faraxsanaay waayo weliba aan aad ugu ololeeyey rabay waxaan rabay muqdisho inay afdhowr noqoto ma raba aniga sax oo la soo caayo hooyadii soomaaliya joognaa aada weyn xamar haddii qofkii soo hadlaayo oo wax ka sheegaba ay ku haado intee loo baxsana meel loo baxsana male hargeysa gabeena wixii ka dhacay marka xamarna haddii aan ku darno ayadiina aan nidhaahno qofkii soo gala hala xiro adeer macaan ama wixiisa hala kansal garay meel la aado male xamar waxaa looga baahan yahay inay soomaali isku hayso xamarna waxaan ogaaday in ciyaal xamarkii laga awood batayba oo waxa hadda dhan oo qaylinaya waxa hadda dhan oo showga baajiyo qaylinaya waa ciyaal gobolkoodhi iyo dad qurba jooga oo qabqablayaala labadaasaa qaylinaya marka ciyaal xamarkii waa lala tegey marka waxaa leeyahay ciyaal xamar soo laabta cogdadna ma naqaanada ku soo noqda cogdadna yaa laga barin inaad soomaaliyeed isku hayn kartaan sameeya السلام عليكم.